xiriirka imaaraadka iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa la filayaa in uu guud ahaanba hakad ku yimaado oo la kala tago sidoo kalena isku shaandheyn cusub ayaa lagu sameyn doonaa golaha wasiirada wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Villa Soomaaliya ayaa looga yeeray kulamo kala duwan oo 24 saacadood ee la soo dhaafay Villa Soomaaliya ku dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliya iyo mas'uuliyiin dawladeed oo dawladda dhexe ka tirsan ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal soo dhawaada hadii ay tahay markay kugu horeysay ee aad soo booqatana waxaan ka codsanaynaa inaad saaxiibada la sii wadaagto qaybta hoose ee faaladan aragtida nagu la wadaagtaan sidoo kalena meel dheer nala gaarsiisaan muuqaalkan marka la soo dhawaada saaxiibayaal waxaanu ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kulamo kala duwan oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu la qaatay tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay dalka mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ee arrimaha dibadda ka shaqeeya waxa la warinayaa in kulamadan si gaar ah Villa Soomaaliya ay uga dhaceen iyadoo wali ay jirto xiisad kacsanaan ah oo ka dhalatay aqoonsigii Israel ay siisay Somaliland waxa Villa Soomaaliya xubnaha uu kula kulmay madaxweynaha xoguhu ay tilmaamayaan inay ka mid yihiin mas'uuliyiinta safaaradaha kala duwan ee Geeska Afrika kuwaas oo looga yeeray Muqdisho sidoo kalena la sheegay in laga hadlayo in meelaha ay ku sugan yihiin kala socdaan waxa ka socda iyo sidoo kale xogaha sirdoon ee ay helaanna ay si dhaqsi ah ugu soo gudbiyaan Villa Soomaaliya si lagaga hortago khataro kale oo aqoonsi oo Somaliland ay ka hesho wadamada kale ee geeska iyadoo sidoo kale kulamada ku dhaxmaraya Villa Soomaaliya ay ka mid yihiin safiirka ama wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa la warinayaa in wasiir Cabdisalaan Cabdi Cali in looga yeeray Villa Soomaaliya saacadihii ugu dambeeyay ilaa daqiiqadan aan idin la hadlayno halkaas oo kulamo uu kula leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wararka ayaa sheegaya in wasiirku iyo xubno kale oo wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqeeya xilalka laga qaadi doono sidoo kalena la keeni doono wasiiro kale si indhaha shacabka looga leexiyo xiisadda hadda taagan iyo sidoo kale ku lug lahaanshaha waxa aqoonsiga loogu yeeray ee Somaliland ay ka heshay Israel waxa la warinayaa in ilaa ay hadda aanan war dheeraad ah laga heli karin kulamadan iyo sidoo kale xogaha laga helayna ay kaliya sheegayaan in safiirka ama wasiirka looga yeeray Villa Soomaaliya lagana hadli doono arrimaha la xiriira wasaaradda iyo sidoo kale shaqooyinka korjoogteynta iyo booqashooyinka kala duwan ee uu wasiirku ku tagay lahaa dalal kala duwan iyo sidoo kale safaradaha dawladda federaalka Soomaaliya ay ku leedahay qaaradaha kala duwan ee caalamka waxaase la warinayaa in dhinaca kale xogo kale oo intaasi ka duwan ay soo baxayaan isla wararka villada ilaa iyo hadda lama shaacinin sababta rasmiga ah ee xilka qaadistan iyo sidoo kale cidda lagu bedeli doono waxaase soo baxaya warar kale oo ku aadan in wasiirada eeda ah ee Puntland kala howlgala ama kaga howlgala dawladda dhexe ee Soomaaliya iyagana xilalka ay weyn doonaan sidoo kalena isku shaandheyn lagu sameyn doono taas oo xilligan cadaadis xoogan la sheegay in dawladda Soomaaliya sabab ay kala kulmayso ama dalal ay kala kulmayso awgeed ay u sameynayso dhinacyadan iyadoo xiriirka Puntland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya uu aad u xumaaday sanadihii ugu dambeeyay waliba 2025 aynu ka soo talaabnay ay madaxweyne Dani iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud halkii ugu xumeed ay isla gaareen ilaa heer isbahaysi madaxweyne Dani uu ku biiro taas oo shirarkii ugu dambeeyayna ay ku qabsadeen gudaha magaalada Kismaayo lama oga sababta rasmiga ah ee xilka qaadistan laakiin waxa la warinayaa in ay ku timid cadaadis wadamo kala duwan ka imaanaya taas oo ah maadaama Puntland saameyn xoogan uu imaaraadka ku leeyahay iyadana taasi bedelkeed lagu sameeyo in wasiirada eeda ah maadaama awood qaybsiga 4.5 ay Puntland ku joogtay wasiirada ama ay ku heleenba xilalkooda laakiin lama oga sida ay u maareen doonto dawladda dhexe ee Soomaaliya maadaama ay tani tahay mid abuuri karta khilaaf kale iyo sidoo kale isku dhac siyaasadeed oo hor leh oo Puntland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya dhexmara gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud marka intaas laga soo tago imaaraadka carabta oo ah hadda dawladaha kamidka ah kuwa Soomaaliya ee ka shaqeeya sidoo kalena saameeno kala duwan ku leh meelo badan oo maamul goboleedyada dalka ay ku jiraan ayaa la warinayaa in qarka uu u saaran yahay in guud ahaanba Soomaaliya laga ciribtiro waxa la warinayaa in 4 magaalo oo ay ku jirto Muqdisho Kismaayo Hargeysa iyo Boosaaso saameyntiisu ay ku xoogan tahay taasi bedelkeedna la warinayo in cadaadis ka imaanaya Turkiga iyo Sacuudiga awgiis dawladda dhexe ee Soomaaliya ay garwaaqsanayso in guud ahaanba imaaraadka ay ka tirtirto gudaha Soomaaliya sidoo kalena ka ceeriso waxaase lama oga waxa dhici doona iyo sida ay u dhici doonaan laakiin dawladda dhexe ee Soomaaliya ilaa iyo hadda ma jirto go'aan rasmi ah oo ay qaadatay oo ay kaga hortagayso dhacdadan ama xitaa ay tallaabo ku qaadayso laakiin xogaha aan helayno
iyo wararka hoose ayaa tilmaamaya in dowladda ay qorsheynayso in ay guud ahaanba imaaraadka ka ceeriso gudaha Soomaaliya. dowladdii ka horreysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidani oo kale dalka uga burisay mas'uuliyiintii ugu sarsareeyay ee imaaraadka, taas oo ay ku eedeysay in dhibaatooyinka ka socda gudaha caasimadda oo ay ka mid ahaayeen dilalka qorshaysan, qaraxyada tooska ahaa iyo weerarada lagu qaadi jiray hoteelada inta badan xarumaha dowladda amaba mas'uuliyiinta dowladdu nasiinada u ahayd ee ay ku shaaxi jireen. waxaase la warinaya in xilligaas wixii ka dambeeyey xiriirka imaaraadka iyo dowladda dhexe uu aad u xumaa ilaa uu xilka ka dego madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo imaaraadka dalka ka ceeriyey. markii uu soo laabtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa bilowday wada hadal in imaaraadka dib loogu soo celiyo gudaha Soomaaliya. laakiin taa beddelkeed waxaa ugu dambeyn la tilmaamay in magaalooyin dhowr ah oo 4 magaalo ee aan soo xusnay ay ku jiraan uu ka dejiyey hub culus, gaadiid iyo sidoo kale saanad ciidan oo uu ugu talagalay in lagu ilaaliyo amniga guud ee Soomaaliya, halka kuwa kalena la sheegay in si gaar ah uu ugu taageeray xubno ka mid ah maamul goboleedyada dalka oo ay ku jiraan Puntland iyo Jubbaland iyo Somaliland. Muqdisho isla sidaasi oo kale gaadiid iyo hub uu ugu deeqay dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa ka soo degay, taas oo ilaa iyo hadda la sheegayo in dowladdu aysan fiirin doonin, laakiin kaliya ay eegi doonto cadaadiska ka imaanaya wadamada Turkiga iyo Sacuudiga oo xilligan la warinayo inay qayb ka noqon doonaan in imaaraadka laga saaro gudaha Soomaaliya. waxaase soo baxaya wararkaas iyo warar kale oo ku aadan in labada dowladood ee Ethiopia iyo sidoo kale Kenya iyagana ay qayb ka noqon doonaan haddii imaaraadku uu meesha ka baxo, inay ku dadaali doonaan inay soo hogaamiyaan dalal kale oo waliba aqoonsi buuxa siiya Somaliland oo hadda isku aragta inay ka madax bannaan tahay Soomaaliya inteeda kale. dowladda dhexe ee Soomaaliya dagaal diblomaasiyadeed oo aad u xoogan ayay ku jirtaa, mana jirto dowlado kale oo garab istaag xoogan u muujiyay marka laga reebo dowlado kooban oo ilaa iyo 4 gaaraya oo ay hogaaminayaan Sacuudi Carabiya iyo sidoo kale Turkiga oo ah mid ka mid ah wadamada sida weyn u garab istaagsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. sidani oo kale markii ay dhacday khilaafkii u dhaxeeyay Ethiopia iyo Soomaaliya, Turkiga ayaa ahayd wadanka ugu badan amaba inta badan garab istaagay Soomaaliya ilaa heer labada dowladood uu ugu yeeray magaalo madaxda wadankaas ee Ankara, iyadoo ugu dambeyn la tilmaamay in heshiis laga gaaray khilaafkii diblomaasiyadeed ee soo kala dhaxgalay dowladda dhexe ee Soomaaliya oo uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale dowladda Ethiopia oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu horkacayo. khilaafkaas ayaana ka dhashay arrimo dhulbadeed, taas oo Ethiopia ay heshiis kula saxiixatay bishii koobaad ee Janaayo 2024 aynu ka soo gudubnay, taas oo keentay muran iyo xiisad cirka isku sii shireereysay oo dadka Soomaaliyeed ay ku eedeeyeen Ethiopia in faragelin toos ah ay ku sameynayso dowladda dhexe ee Soomaaliya. sidaad badankiin ogtaana ciidamo Ethiopian ah oo tiro badan ayaa ku sugan gudaha Soomaaliya, qaybo kala duwan oo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayayna ciidamadeedu haystaan, hub culus ayaana halkaasi u yaala oo qaarkood ciidamadu waxa la warinayay inaysan qayb ka ahayn howlgalka midowga Afrika ee AWSOM hadda loogu magac daray ee gudaha Soomaaliya nabad ilaalinta u jooga. saaxiibayaal wixii ku soo kordhay guud ahaan qodobadani oo idil kulamada ka socda Villa Soomaaliya ee ku dhexmaraya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale mas'uuliyiinta arrimaha dibadda ee dowladda dhexe ee Soomaaliyana barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa. isku shaandheyntan iyo sidoo kale xilka qaadista wasiirka arrimaha dibaddana xilliga ay soo baxdo ayaan halkan idinku la wadaagi doonaa. haddii aad ilaa dhamaadkana la soo gaarteen waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto, sidoo kalena saaxiibadaada la sii wadaagto, qaybta hoose ee faladan aragtidina nagula wadaagtaan.